السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawo channelkayga magacayga waa Saaro haddaad iga cusub tahay barasho wanaagsan haddaad soo noqonaysid soo noqosho wanaagsan oo wacan haddaad iga cusub tahay waxaan ku leeyahay waxna hasmartiyeynin channelka waa channelkaagii wixii wanaagsan baan isla wadaagnaaye soo gal nagu soo bir walaal macaan subscribe ka taabo haddaad videogan ka heshidna like noo saar haddaad mataqaanaa comment iyo fikrad iyo waxyaalahan ku dirsanaysid ama dhehaysid maasha allahna hoos ku soo qor insha allah taan sida sunniyaha loo suubiyo maxaa yeelay sunniyaha ama wallaahi waxay kaa dhigi karaan dee dad sunniyo leedahay maasha allah ilaahay kugu deeqay oo ilaahay sunniyo fiican ku siiyey maasha allah baan ku leenahay laakiinse qaarkeen aniga ka mid ah sunniyaha timo badan ma ku lihi waa inaan dee mataqaanaa soo bixiya marka qaarkeenna waa inaan baranaa waxna laguma soo dhalan moogtahay wax walba waa barasho quruxina dukaan bay taallaa marka labadan la isku daro waxaad helaysaa sidan oo kale faamino waxaad baranaysaa quruxdiina dukaankii baad kasoo gadanaysaa qalab baa jirta oo mataqaanaa lagu sameeyo laakiinse waxaan is iri maybe dadka qaarkood inaynan haysanin makeupkaas oo aan ku waxeeyey marka waan hubaa in aad haysatid indhakuul teeni asalka ahayd qorigii indhakuusha ahaayo indhaha dee waagii waayii ahaayo hooyooyinkeen bas hooyadii markasta waxay ku faanaantaa waxan iyo balaayadan aad ismarinaysid iyo indhahan balbaalka iyo waxaneeto iyo waxaanana kamami hal indhakuul baan saas iyo saas dhihi jirnay oo kaale arag well indhakuushii bas haddaad haysatid macaanto tan waxaan ku subiyey indhakuul caadi ah qalin qorigii indhakuusha ahaa tanna waxaan ku subiyey makeup oo loogu talagalay sunniyaha marka mid ka haysatidba insha allah waxaan rajeynayaa maanta inaad videoganito aad uga faa'iidaysid dee waa inaan la practice garayaa uuna wax aan kuu sheegi karo waxaa waaye practice uun aniga sidan inaan sunniyahayga ka dhigto waxay igu qaadatay wallaahi muddo dheer oo cabaar ah sunniyahana inaan mataqaanaa suubisto waxaan bilaabay 20,000 Wait a minute. Wait a minute. Wait, first of all, you're not going to speed past that like you didn't just say what you just said. 2015 hadda ilaa 5 sano sidan baan u suubistaa markaan meel aadayo xaflad aadayo ama dee howl aan caadi ahayn shaqada ay ka jirto laakiinse badankay caadi waan iska baxaa makeup iyo waxaas marsadii marka practice bay qaadanaysaa insha allah waxaan rajeynayaa in aad haddaad sii mataqaanaa practice garaysid qaadataan umalaynaa bilo adiga waxaa lagaa rabaa dadaal maalin kasta practice garee maalin kasta isku fiiri isku day maalin run waan kuu sheegayaa maalin waxaad u ekaanaysaa adigoo dee wejigaaga caadiga ah sunniyaha markaad marsatid wow surprised inaad tahay camal waa lagaa yaabayaa walaa macaan adigoo dee surprised ahayn baa indhaha surprise kaa dhigaya mogt maalin waxaad noqonaysaa naxdin camal wow maalinba maalin laakiinse maalin maalmaha ka mid ah ayaad helaysaa sidii saxda ahayd oo quruxda badneed aad kusoo baxaysid wejigaaga kusoo baxaayo quruxdaadana kusoo baxayso marka insha allah waxaan ku leeyahay dadaal garabkaagaan taaganahay jooga adiga just insha allah practice garee and then hadduu ilaahay yidhaahdo waad heli doontaa hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah marka hadda waxaan u gudagalaynaa sidaan labadanayto because laba waxaan kala isticmaalay aan mataqaanaa saan ugu sameeyey so insha allah sii daawada okay gabdho marka hadda meeshan waxaan iga tusayaa qalabkan marka ugu horeysa isticmaalayo magaciisa iyo waxaasna xagaasa ka helaysiin marka ugu horeysa waxaan jeclahay furka intaan ka qaado aan buraashka si fiican productka aan ugu soo qaato isla markaasna aan buraashka afkiisa aan aad u dhuubayo siduu laanka aad iigu dhuubnaado marka hoostaan ka bilaabaa weligay hoostaas line yariis ah oo dheer ilaa meeshii sunniyaha ku dhammaadaan baan ku joojiyaa and then waxaan ku xijiyaa line kore oo sunniyahaaga korka meeshii timahaaga u joogsadaan saddexaad waa line dheer oo mataqaanaa aan ilaa meeshii sunniyahaaga ku joogsadaan geeska laba line oo mataqaanaa parallel ah I don't know how to say parallel in Somali but labadaas line in aan waa laba kor ah iyo laba dhinaca ah marka waa kan ka hoose ka kore waa kaas
and then labadaas dhinaca ah marka waxaan waa farshaxan wallahi waa waxaa sawirinaysid marka adiga sunniyahaaga say u yihiin waxee haddana waxaan soo qaadanayaa productkii intii ku hartay furka intii badnayd baan tartiib uma soo waxaynayo kulli brushka horadiisaan kusoo qaadaya productiga and then sa ujeediinba productkii ayaan si xoog leh dhinaca dambe u waxeeyey laakiinse marka la gaarayo dhinaca like horeda ama fiida sunniyahaaga meeshay ka bilaabanayaan waxaa rabtaa in aad tartiib u waxaysid maxaa yeelay waxaad u waxaynaysaa camal inay waxaan natural ay yihiin marka haddaa horeda ka bilaawdid too harsh buu noqonayaa marka waxaa rabtaa wax oo natural ah oo quruxdaadana soo saaraya haddana concealer kale aan u gudubnay aniga concealerka waxaan jeclahay inaan isticmaalo LA Girl or Born This Way marka in yaraan qaatay brushkanaytana waa brush elf ah waan aad baan u jeclahay si fiican u laymanka u suubiyaa waana $3 u malaynayaa marka waa brush oo si fiican kugu waxaynaya raqiisna u taagan yahay marka waxaan jeclahay inaan again hoosta ka bilaabo si tartiib ah anigoo degdegaynin oo mataqaanaa aad u taxadaraya inaan hoostii qalinkii meeshii ka hooseysay in aan concealerka ku waxeeyo tanna waxay ku suubinaysaa haddaa like qalinkii madoowa haddaad mataqaanaa wax ku khaladay mise haddii uu lineka kaa khaldamay waa waxaad ku tuusin lahayd marka muyaaradana waxaan jeclahay aniga inay waxyar iga fogaato saan u fiiriyo mataqaanaa inay waxaanayto natural ay yihiin hadda aad iskugu dhawaysid waxaa laga yaabaa in aad too much productka aa qaadatid marka hadda tartiib aan u wadaa geesaha dhan iyo mataqaanaa hoosta dhan ayaan tartiibtaas wallahi product badan uma baahan maxaa la dhahaa oo concealer ah waxaa u baahan tahay in yar kanna waxaa waye sponge a beauty blender whatever u taqaanid bush ma garanayo waxaa Soomaaliga ku dhaho but haddii aadan haysanina it's okay waan ku tusayaa markaan subinayo mataqaanaa dhinaca indhakuusha aan ku subinayo farteedaan isticmaalaa badanaa wallahi aniga makeupkayga waxyaalaha qaarkood waa maka caajisa inaan isticmaalo maxaa yeele farahayga haystaa marka hadda basically waxaan subinayaa concealerkii baan tirayaa ama aan mataqaanaa ka dhigayaa in ay blended ay tahay that way harsh ma ekaanayo kanna waxaa waaye foundationkana badanaa waxaan mariyaa kor in yariis ah baan mariyaa maxaa yeelay waxaan rabaa in jirkayga mataqaanaa caadi wejigayga iyo waxa sunniyaha aan kor ka mariyo inay isku ekaadaan tanna it basically creates an easy blend for your foundation and just overall you won't like have really harsh lines oo mataqaanaa sunniyaha kuwa waan dhameeyey tan si wagtaa ujeedin ta kalena haddaan waxaan ku bilaabayaa qalinkii indhakuusha dee any qalinaad suubin kartaa marka sidii oo kale haddana mar labaad suubinayaa line hoos ayaan ka bilaabay soo ujeediin and then line kor ayaan ka bilaabay marka labadaas line waxaan ku xijiyay labadii lineka oo geeska ah tanna aniga badanaa sidaan u bartay waa sida iigu fudud haddii aad wax qalad suubisid mise hadduu kaa weynaado hadduu kaa yaraadona waxna ha ka walwalin maxaa yeelay concealer baa haysataa concealerkan waxaa loogu talagalay in uu conceal gareeyo ama inuu wax qaladka mataqaanaa inuu qariyo marka don't worry adiga waxaanayto haddii bilaaw ay kuu tahay markii ugu horreysa aad bilaabaysid waxna ha ka walwalin iska bar uun practice garee gurigan haddaa ku joogtid qofna kuma arkaayo hadday kuugu tahay markii ugu horreysay so just keep practicing haddana haddii aadan haysanin Anastasia Beverly mataqaanaa sponyaha ma la dhahaa I don't know but brushkan caadiga isticmaali kartaa kuwa shanlada leh iyo brushka gadaalka leh badanaana waxaa lagu gadaa ama dollar store ama Target ama Walmart and they're really inexpensive so soo gadan kartaa and then haddana waxaan ku noqday mar labaad
concealerkana sidii hadda ay ugu arkaysin tartiib aan u mariyey mataqaanaa aayar waqtigaa qaado ha degdegin badanaa aniga eyebrowska waa waxa ugu horeeya aan suubiyo marka concealerka si fiican oo u qarsoomiyaa mataqaanaa sida la iiga dareemin in aan makeup marsanahay ama ay mataqaanaa harsh lines aniga waxaan necbahay harsh lines inaan arko I just like blended makeup inuu si qurux badan oo mataqaanaa natural ah but at the same time oo haddii makeup inuu kuu saaran yahay lagaa karanayo marka sidii aan sunnihii kale ku subiyey aan u shanlaynayaa and then that's it waa dhamaysay qurux so intaasaan ku dhameynaynaa hadduu ilaa yiraahdo videogii haddii aad su-aalo kale qabtid insha allah ila soo xiriir all my socials hoostan soo dhigayaa comment ii saar haddii aad ka heshay oo aad jeceshahay kuwan oo kale haddii ay jirto gabar walaasheen ah oo ka faa'iidayso videoganna fadlan la sheer garee haddaad ka heshay videoganeeto like-ta saar insha allah haddii aad nagu cusub tahayna dee hoosaan kugu sheego waa hore waa macaan waxnaha xishoonin subscribe taab isku soo biir familiga waa insha allah iyo inuu video dambe hadduu ilaah yiraahdo waa walaashin saara oo idin leh nabadgelyo